السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dadka madashan isugu yimid madax heer walba leh ardayda waalide aad iyo aad baan ugu soo dhaweynayaa madaxdan ana aan ugu faraxsanahay inaan nasiib u yeesho inaan xafladan bilan ka soo qayb galo oo jaan soo helena aad iyo aad baan ilaahay ugu mahadinayaa waxaan ugu gudbayaa xafladan maanta cid leh waa ardayda qalin jabinaysa oo da'war bale oo rageed warba leh oo digriyo kala duwan ku qalin jabinaya dhammaantiin waa idin hambalyeynaya waan idin ducaynayaa ifya akhirasan iyo digrigiinaas oo idinka iyo dalka waafacana ilaahay baan ugu rajaynayaa hambalyada labaad waxa la waalidkii halka ay soo gaarsiiyay hambalyada saddexaadna waxa la bahda waxbarashada heer walba leh oo mid walba qaybsi ka soo qaatay ilaa macallinkii elementary-geedii soo bilaabay class koobaad ilaa hooyadii af Soomaaliga idin bartay iyo aadaabta ilaa aabihii idin baray sida loo dhaqmo ilaa waxbarashada soo bilowday ilaa maanta cidii ka qayb qaadatay waxbarashadaana waa u mahadnaqayaa oo waan hambalyeynaya geed waliba goob walba hadalkeeda leedahay tacliinta iyo waxbarashada iyo wixii la idin sheegi lahaa iyo waay araga ragayga aqoon badan oo aan agtooda ka hadal baad kala hadlay Soomaalidu waxay tiraahdaa hal liba xarkiisa ma godlato maanta hadalku iga baxayo dhowr nin oo halkaan iska eegaya ku jiro oo markaan eega leeyahay waxba hadalkaaga baahna meesha iyo mowduuc laga hadlayo maadaama taan la iga qaatay wuxuuna dhowr qodob oo yar oo aardika xusuusi doona amuud anu maxaan ku xusuustaa taw horta amuud waxaan ku xusuustaa dhibaato maanta ardayda haysata iyo waalidka iyo waxbarashada dhibaato saddexda haysata oo ay wali soo jaan qaadayeen ayaa waqtiga ilaahay dhib yareeyo aanu aad iyo aad u helaano waxa weeye maanta ardaygii kolku bilaabo af Soomaaliga maanta ilmaha yar guriga jooga af Soomaaliga markuu bilaabo isagoo afkiisii baranin waxa dhex socda TV-gii iyo telefoonkii iyo qoraallo marka qofkii yara maskaxdiisu markii koraysa maanta uu qasmaya qofkuna haddii uu ku koran culture ama dhaqamo kala gaada oo ku qasma ama luqado waxa laga yaabaa maskaxdiisu ha dhowto inay noqon weydo mid meel ku tilmaaman ee wax badan arbushaan taamaana haysano waxa dhow ma jirin waxa aabahay hooyada noo sheegaan waxa macallinkayga loo wax noo bilaabay noo sheego ilaa ka dambeed ka baxayso sidaa darteed waxaan xoojinayaa ereyga ahaa waalidiintu ardayda qayb weyn ka qaateen kuma filna goobihii tacliintu ka waa taageeraya anigu halkan aan imid amuud aanu joognay waalidkayo nooma dhaweyn inta badan waalidkayo miibu joogay dhaqankan aanu mid beerlayda maana aqoon laakiin yaa na toosiyay waxaan toosiyay marka hore maana lahayn waxaan imka adduunka socda library-ga yar iyo intayda ardada aan baan isku filay laba haddaanu xanuunsano hadday dhibaato nagu dhacdo hadday wax soo kordhaan magaalada Boorama markaysana aabiyo hooyayno wadahayd oo maana qaroon jirin sidan maanta TV-ga la isku caayo ee la isku tartamayo ee dadkii tacliinta la bidayay baalka yar ee telefoonka waxay ka akhriyaan adoo soo war tacliinta maxagaas u baydhay aad kana xaysaa ma ilahay inanka xanuunsada ka dhibaato ku soo korodho waa lagu qaadaya magaalada wax qala ama dareemin waalidka umaad baahanay hadaa laga eriyo iskuulka oo macallimiintu ku qabsato waalidka jooga ayaa ku waalidha ku dacwoonay ama ku soo waarinay halkaan mido waanigii maalintii halkaan idinku bahday amuud baatihiin idinkuna curadkii anigu waxaan ahay curadkii Saleebaan idina guri dambeeskii baatihiin doorashooyin baa jiraan iska war hayno waaniga aad halkaan maalinta bariyaar weer maalinta wadikii ugu gargaareen meeshii madaxweynaha la magacaabay boqolkii cisho ee la isweydiinay maxaa la qabtaa marka hore wixii noo qorshaysnaa waxa ka xoog weynaaday
dadkii markaa cabinetka igu yimid ama shaqay igu yimid ayaa waxay soo jeedeen ay ra'yaal aad iyo aad u wada wanaagsan oo kala dooran kareen waxa ugu hore general buu ahaa laakiin waxay ku keenayaan wax faagto kala doorata waxaan u mahadnaqayaa oo intaan u sheegay taariikhda horta Soomaalidu waxba isma ogola ra'yiga ama fikradda ninka hela Soomaalidu inta badan ma sheegtee ka furiyay ama wax rijeeyay ma la sheega madad fiirsato midalan gabayaagu bariyo hore de isagana gabayga tirin jiray luuqdana isaga lahaa deetana waa gabayga hebel buu hawo qoraa imika ninkii uu gabiyo muusig baa loo tumay muusigana dhibaato u keenay marka imika xigmadda oo dhan waxa iska ninkii codka qaaday ninkii fikradan lahaa haddaan imika weydiiyo boqolkii inta halkaa joogta ninka ugu falsafad badaa heesaha qaarkood ninba uu wada raggan gabayaasha sameeyay laakiin ninkay nagu yiri goriyadu ilmaheeda meel banaan bay dhigtaa shibirtuna aqal loo dareelaa aroos markuu roob soo socday oo samaysa ee aan jaamacad gelin ee ra'yiga xiray haddii la yiraahdo maxay ahayd intii badan xarsa waa heesta ay qaada hiba nuura qaada waryaalaha qof yala idinku waa garanaysaa balaga bidkiin maadaama abuur joogtaan laakiin soo dhigista ma garanayso boqolaal la mid ah jira waxaan uga socdaataa halkan qolo estraad la yiraahdo oo wadooyinka dhista ayaa soo gudbisay in wadada Djibouti la bilaabo boqolka cisho hore soo lacag la geliyo 1 milyan hada geliyo yaraada marka horena boqolkayga maalmood waxay ugu jirtay wadada Djibouti la qaajiyo nin odayaho markaa joogay wadooyinka ayaa wuxuu wariyaahe soo camuudka baad bixin maalin hore oo aan halkan wadooyinkaas u ila socdo salaam bay igu yiri waxaan u baahanahay deyr iyo in wadada baasha dooxa camuud arday laga dhiso laakiin taas salaam maanta hore general bay ahayd aad imay taaban waayo qoladan estraada ayaa igu haystay culays wadada Djibouti dhis ninka la Cismaan Sheekh Cabdi oo markaa shirka lagu qaybinayay arinta jooga baa yiri waxaan ku sheegay madaxweyne dhamuug soo garmaysa de barigi dhowr iyo 300 qof baa haydeen meesha amar jirteen oo hadduu roobka xidho waa ku noqon karayeen magaalada saaxiibada la seexataa iyo hodelka Harweys ka tagtaaba laakiin meesha imika kuma galaya roobkiina waa sidii dhamuugna way sii balaaratay waxaan iska daayay halka bridge sar dad karayso aad iyo aad baan ugu maqday xalay baan xusuustay marka roobku ilaacay isku daray ayaan xusuustay Cismaan in looga mahadnaqo fikradda ninkii istaagay inuu ahaa isna taasina waa xusuus kale camuuda maanta hadalkii kale waxa iga xidhay nimanka halka fadhiya bal ardaydiina qaar galmadooyaal waaweyn baan arkayaa rag waaweynahay laakiin dhalinyarada waxaad qiyaastaa oo ilaahay insha Allah gaari doontaan halka taageeray maanta waa camuud وما شرط ذكاء بريسبل كاجي بكور جوجا وصلايبانا وذكاء حشور سامها ذكرت واحد جوجا نكير رول بوركا هاي كورن شري وريا كبايد يرو جونيور بحال كان محاك سو غارسي halkan farxadeeg waxyaalo badan wixii guud ahaan shalay baan idhi kuba dhaca maanta hal liba xarka saama gudato kama daba hadlayo qolada sarkay joogto bal bariga halka insha Allah inuu ilaahay soo gaarsiiyo oo professorka ku ixtiraamayo oo ka qoonta badeedka carrisay junior ku ixtiraamayo oo inta soo qof shalay bacadka ku taagnaayeen ku salaamayeen oo dadka oo dhan ku soo wadaweynayo bal culayska ay leedahay iyo qiimaha aad waxaad ku jawaabi lahayd taas ku qabsato ka si fikir insha Allah waa gaari doontaane waxaana ka marxaatay inaad saa gaari doontaan halka aan ku jiro maanta oo kale maxamed xajraaci baa noogu yimid halkan isagoo oo prime minister library aan ugu jira la soo direeyay kalaasada waaweyn hool weyn ma aan lahayn barnaamijkaas uu noogu khudbaday wuxuu yiri barito waxaan noqon doontaa madaxda dalka prime minister ka noqon doona annagu waan goobaynaa ilaahay wuxuu ogayaa waxa ila ahayd wax impossible warmi waanay prime minister waana buugayga qalka aan ku akhrisan ilaahay wuxuu qadaray inaan isoo madaxweynaha wasiir noqdo oo noo sugu nimaado meeshii oo ku yiraahdo ma wixii aad maalintaan lahayd aad ergabada dhacsanayn laakiin qadarka ilaahay waxa uu keenay karaa taasina waxaan idin sheegayaa
maanta haddii la leeyahay dalku shaqo baloo shaqo ma helaysa shaqada adag duruufaha adag waa soo tacabteen xaggee gaaraysaa taa aan soo maray haddii ilaahay yidhaahdo oo iskeen gaarsiiyana waynu arkay haddii kalena waxa ku abshirtaan madaxda intaa kor u eegaysaan inaa noqonaysaa kuwa gaaraya annaguna waxaanu idinku dardaaraynaa sidaa wax u maamushaan oo ugu weyn tahay marka hore halkan waxay idin jidaan ardayda waxa qabataan cibaadada alla ka cabsi ku ogaada laakiin anigu waxa ku dartaan qaran dhis haddii qaran la waayo jaamacadda san qurux badan mayso haddii xorriyadda la waayo oo qaranku tasho waayo jaamacaddana qurux badan mayso si ubadkiinu jaamacaddan sii quruxaysatay oo weelkan weyna Saleebaan sameeyay China Wall baan ku dhisaa ka Saleebaan te China Wall baa dhistay jaamacad ka weyn aragtida inta leega inay halkan maryuun arday galaan si ay u heshaan waxa ka horeeya inaad talada gacantiina ku haystaan Soomaaliland ahaan